Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. WhatsApp-ka waxaan rajaynayaa inaad isticmaashid barnaamijkan WhatsApp oo aynu maanta halkan taariikhdiisa ku lafaguri doono. Haddaba ma isweydiisay barnaamijkan aadka u caanka ayaa sameeyey, xaguu ka yimid, sidee loo sameeyey? Su-aalahaas ayaynu maanta halkan kaga jawaabaynaa. Ku dhowaada barnaamijka kan. Waxa uu ku dhashay Ukraine, bariga Yurub, magaalada Kiev. Jankum waa ninka sameeyey WhatsApp, laakiin keligii ma aanu samayn, laakiin saaxiib amba qof u dhowaa agtiisa ayaa la sameeyey barnaamijkani oo la soo cabeeyey. Waxa uu dhashay 1976. Jankum iyo hooyadii amba familigiisa ayaa waxa ay u qaxeen Mareykanka, gaar ahaan California, xilligaas oo dagaalo aad u qadhaadhay ka socdeen Ukraine, midoogii Sofiyeetka. Markii ay cagta dhigeen familiga amba qoyska, hooyadii iyo aabihii iyo Jankum, California ayaa waxa ay bilaabeen inay nolol maalmeed ka raadsadaan waxyaabaha shaqooyinka yaryar. Waayo ma aysan hooyadii garanayn cilmi ay ku shaqaysato, way qof qaxoontiyaabay. Dowladduna waxay siisaa wax mucaawina ah oo aan ahayn lacag, oo ah raashin iyo waxyaabo agab yaryar. Jankum oo aad u xiiseynayay software engineering-ka ayaa waxa uu raadsan jiray inuu ka shaqeeyo meelaha nadiifiyo meelaha shaqooyinka aad ku yaryar, inuu ka soo shaqeeyo ku dabaraa maalinta nolol maalmeedkooda. Markii uu 16 sano gaadhay ayaa waxaa dhacday wiilkan yari inay hooyadii ay dhimato, aabihii oo aan waqti dheer aan kala dambaynin. Jankum waxa uu ku soo dhacay meel bannaan ah. Wiilkan yari ee lagu magacaabo Jankum ayaa waxa uu aad u xiiseyn jiray sidaan horeba idinku soo sheegay software engineering-ka, laakiin ma aanu helin qarashaad uu iskaga bixiyo jaamacadda. Se waxa uu akhrisan jiray maktabadaha buugaagta yaala iyo inuu ka dhigto online-ka xilligaasi. Jankum ayaa shaqo waxa uu ka helay shirkadda Yahoo, halkaasi oo ay isku barteen Brian Acton oo ah saaxiibka keliya ee ugu dhowaa ee markaasi gacan qabtay Jankum. Taariikhdu markii ay 2009 ayaa waxaa dhacday in Jankum ay fikradiisu noqotay inuu soo saaro barnaamij kaasi oo WhatsApp ah, waa WhatsApp-kan. Markaasi fikraddan waxa uu soo bandhigay saaxiibkii Brian Acton oo ku raacay oo ku dhiirigeliyay inuu barnaamijkani soo saaro. Ugu horreyn barnaamijkani waxa uu shaqayn jiray barnaamij aad u yar buu ahaa oo aan awood u lahayn inuu dadku ay wada xiriiri karaan cod, qoraal iyo wax kalaba. Muddo markii barnaamijku sidaa ku socday ayaa waxaa dhacday in Jankum uu la kulmo nin Ruushiyaan ah oo kula taliyay inuu barnaamijkan ku soo daro qaybtan chatiska ay dadku iskala xiriirayaan, laakiin ma aanu awood u lahayn amba ma aanu garanayn. Laakiin ninkan ayaa waxa uu ku yidhi anaa kugu sameynaya barnaamijka sidaas iyo sidaa, waanu u sameeyey. Markii uu barnaamijkan dhammaystirmay ayaa Jankum amba Brian Acton labadii saaxiib ayaa waxay ku soo dejiyeen moobilada dadka qaar, laakiin barnaamijkani kama aysan helin. Waxaa dhacday barnaamijkan inay sidaa kusii horumariyaan, ay waqti sugaan, laakiin muddo yar markii uu sii jiray barnaamijkani waxaa soo diragsaday 200 milyan oo qof amba in ka badan. Midda ugu horeysa ee ay ku tali jireen ayaa ahaa inayna barnaamijkan xayeysiin u sameynin. Mararka qaar ayaa waxaa loo soo bandhigay in barnaamijkani la maalgeliyo, laakiin waxa ay ka doonayeen inay xayeysiin saartaan, laakiin way ka diideen. Barnaamijkani sidaa markii uu soo socday, maalgelin ayaa lagu sameeyey xayeysiis la'aan. Barnaamijkani horumar aad u fara badan ayuu sameeyey. Markaasi shirkadda Facebook oo markaasi aragtay inuu barnaamijkan aad kor u kac sameeyey ayaa waxa ay ku doontay inay ka gadato barnaamijkani WhatsApp labada nin ee sameeyey. Waxayna u soo bandhigtay inay kaga iibsato 19 bilyan oo dollar, waana barnaamijkii ugu badnaa ee lacag intaas le'eg lagu iibsado. Fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay like saar, sida kale haddaad kanaalka ka heshay subscribe saar. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.